waxa uu weydiiyey sababta ugu dhiiratay inay soo weerarto. waxay u tagtay inankeedii, waxay ku tidhi waan kaa soo habsaamay, waxaan ku oggolaaday inaad dhibaatootay. wuxuu mar labaad weydiiyey waxay halkan ka qabanayso iyo sababtay ninkan u taageerayso. waxay u sheegtay inay halkan u timi inay taageerto, waxaanay ku qabatay baskooladii. dhammaan dadkii meesha joogay waa ay naxeen. wuxuu yidhi ciddaan ahay maad garanaysaa, adeerka iyo aabbahay waxay madax ka yihiin qaybtan, balse iyaduu ma ay sheegin inay iska leedahay kambaniga dhammaan. inankeed wuxuu ku yidhi meeshan iskaga tag, dadkan waa dad naxariis daran, ma doonaya inay dhibaata kuu soo gaadho aniga dartay. balse waxay u sheegtay ninkii iyo gabadhii in ay wax yar kadib ka qoomamayn doonaan ficilka ay sameeyeen, balse waa ay ku qosleen. mar labaad waxay ugu celisay adeerkii iyo aabbihii xitaa hadday yimaadaan in iyaguna ka baryi doonaan naxariis. waxaa lala hadlay adeerkii, waxaa loo sheegay in ay kambaniga ka socoto dhibaato oo u yimaado.